waxaan aragnay beeshii ciise dadkii mas'uuliyiinta u ahaa gobolkan meel kasta joogaan ama dibadda joogaan ama Djibouti joogaan ama Ethiopia joogaan ama xaggan joogaan iyagii oo aan isku mid aan ahayn mid kastaba mowqif isa uu aaminsan yahay markaan aragnay maadaama oo annagu nahay dadkii xoogagaalka ahaa ayaan go'aansanay inaan urur dhalinyaro samayno 20 jir ilaa 40 jir ka kooban indhaadooda inta u dhaxayso taabaan go'aan ku gaarnay ururkiina uu galay magaciisana waxa la yiraahdaa ururka dhalinyarada gobolka Salal ee Gurmed baa la yiraahdaa waxaan markaa shacabweynaha beesha Ciise aan ogeysiinayaa ururka ka hirgalay gobolka Salal in uu furan yahay qof kasta oo Ciise ah ama danaynaya wax loo qabto gobolka Salal qof kasta oo danaynaya ururkaas uu furan yahay maanta waxaan shirka jiraadaan u qabanayna waxa weeyaan waxaan ogeysiinaynaa inuu qof kasta uu furan yahay waan ku soo dhaweynaynaa qof kasta oo nagu taageero ururkaas السلام عليكم ورحمة الله. midaan ku weydiiyay waxaad qaban doontaan inagu weyn muxuu yahay natiijada aad gobolka ka qaban doontaa horumarka noqoto natiijada gobolka aan ka qabanayna waxa weeyaan haddii ay tahay dhaqaalaha waxaan ku bilownay horta annaka iska dhexdayada iska ururayna ka bacdi waxaan sameyn doonaa haddii Ilaahay raaho in shaqo abuuris aan samayno in dib u dejinta gobolka loo wado inaan ka qayb qaadano mashaariicda markaa gobolka imanayo dhan inaan dadkii gobolka deganaa baan hay inaan hormuud u noqono markaa ummadda taan ku tala jirnay waa taawiyay